عالمين magacaygu waa Cabdijaliil Cabdullaahi Xasan Sheekh Xasan Barsane oo awow u yahay halkan waxaan u taaganahay maanta baaq iyo waxa leeyahay ninkii wax kugu kaalmeey way haduu cod kugu kaalmeey xataa waxay ku noqonaysaa wehel annagu wadaanahay odayaashii Soomaaliyeed ee Nairobi deganaa waxaan isku xilqaanay inaan wixii karaanka aan awood aan gali karna arintaas inaan ka galno waxaan isku buugaabinay bal horta markii horeysa inaan meediyaha aan tagno si ay u ogaadaan dadkii inaan dad hadli karo oo arintooda ka danqanay inay joogaan arintu Soomaaliya iyo meel walba ka dhacday waa arin yaani mucjisa waana la sii kala daran yahay sababtu markii la yiraahdo fatahaad maanta Soomaaliya dhowr meel bood fatahaad ka dhacday waxa ugu weyn laakiin waa beledweyne marka aragtaan ninkii maanta beledweyne arko waxa arkaysaa iyadoo doon lagu dhaxwato taana waxayna yani ay ka marqaat kacaysaa awood yani ay biyaha ay gaarsiisan yihiin marka anagu dawladda Soomaaliya sida uu gurmatay degdeg aad baan ugu mahad celinaynaa haddana waxaan leenahay inta dhiman oo ma taqaana awoodi kartaan inaad ku sii dhamaystirtaan waxay la tahay xoogaa oo wax yar haddaan ku darsado oo kaftan iyo daliil aba waxay la tahay beledweyne dadku waa yaqaaniin inta badan laakiin intii aan aqoonin beledweyne markay tagaan hal dhinac tagaan kaliya dhinac kalena ay maartay ay iska iloobaan marka waxay la tahay dadku qoraxsin iyo bari ay u qaybsantaa magaaladaas marka waxay la tahay dawladdu waa dadaashay laakiin waxay la tahay hadii dadaalku inay laba dhinacba ay geersiiso sababtoo waxa dadku meesha xagga nagala soo hadlo waxay leeyihiin war anagu waxaan waa maqalnaa raadi waxaan ka maqlan laakiin wax na soo gaaray iyo toona midna ma arkin marka waxay la tahay doomo waaba geysaan doomanka alaabta inaad wax ku qaadaan dhinaca galbeedna hala geeyo barina hala geeyo beledku waa laba meel waxay la tahay ummaddu wax ay kala duwan tahay male waxaan leenahay anagu baaqayna iyo ina arintaas loo gurmado waxaan tari karnaa anagu haddaan Nairobi joogno waxaan ku dayaynaa ummaddu inaan dhex qaadno si aan wax ku aruurin karnaa aan ku aruurino maadaama odayaal iyo nabadoono iyo wixii oo dhan ka koobana marka waxay la tahay arintaas waa ila kaftan laakiin dawladdu waa dadaashay dadaalkeeda si muujisan leenahay wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh